Ronaldinho, Karim Benzema iyo ciyaaryahano kale oo shaashadaha kubadda cagta ka soo muuqdaba inta badan waxaa loo maleeyaa inaysan caruur lahayn balse sheekada sidaa ma ahan. Qaraax Tiyub ayaa ku soo gudbanaya warbixintan oo si gaar ah u taabanaysa xaaladda qaaska ah ee ciyaartoydan. Waxaa ugu horeeya Karim Benzema weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxa uu heystaa caruur. Real Madrid ayaa ciyaaryahankeeda guursaday gabar modelka samaysa oo Amerikaan ah. Saa darteeda waxay u haysaa caruur lagu kala magacaabo Joya Deloni iyo sidoo kale Anlisha. Labadan Benzema u dhalatay waa laba gabdhood. 5 May 2017 ayaa u dhashay canug lagu magacaabo Ibrahim, kaas oo sidoo kale ah aabaha ama wiilka saddexaad ee Karim Benzema. Xidiga labaad ee warbixintan taabanaysa waa Mario Balotelli, weeraryahankii hore ee kooxaha AC Milan, Manchester City iyo Liverpool ayaa asna sidoo kale ah aabe. Sanadkii la soo dhaafay gabadha ay saaxiibada ahaayeen ee Caaliya ayaa u dhashay wiil lagu magacaabo Leon, wuxuu ku dhashay Zurich oo Switzerland ah. Waa 5 sano jir gabadhii Swain ee la yiraahdo Pia Balotelli, taas oo mararka qaar ka soo muuqata TV-ga Talyaaniga. Patrice Evra waa mid ka mid ah ciyaartoyda qoyar socodka ee kubadda cagta. Inta badan caruurtiisa laguma arko kubadda cagta. Saa darteed xidigaha sida Fabregas, Ronaldo, Messi, Morata, Ribery oo kala ma ahan kuwaas oo mar walba soo bandhiga qoysaskooda. Evra waa ciyaaryahan social media ah balse kuma soo daro xaaskiisa iyo caruurtiisaba. Waxaa loo hayaa Sandro oo ah wiil isaga u dhashay Leni iyo gabadhiisa Muna ayaa u joogta Patrice Evra. Warbixintan waxaa sidoo kale lagu soo daray ciyaartoyda heesta caruurta haddana aan shaashadaha inta badan la wadaagin ama aan lagu arkin. Waxaa ka mid ah xidiga lagu magacaabo Mohamed Salah, weeraryahanka kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa mar noqday hadalhaynta kubadda cagta midka ugu sareeya kadib markii xil ciyaareedka la soo dhaafay uu wacdare ka sameeyay horyaalka Premier League. Salah kaligiis ayuu soo qabanayeen kaamirooyinka marka la fiiriyo maalmihii fasaxa ee ciyaartoyda ay ku jireen. Waxaase mar la arkay in maalinkii la guddoonsiiyay goolaliyaha ugu sareeya horyaalka Premier League in gabadhiisa garoonka lagu arkay. Waxaa Mohamed Salah sidoo kale loo yaqaanaa Abamaka. Ronaldinho, mucjizadii hore ee kubadda cagta, ayaa sidoo kale liiskan soo galay. Ronaldinho waxaa u jooga wiil lagu magacaabo Joya de Assis Moreira. Waxaa dhashay hooyo Braziliana oo la yiraahdo Janina Mendes. Waa gabar Braziliana haddana heesta, balse Ronaldinho inta badan wiilkiisa kuma soo bandhigo shaashadaha oo si gaar ah ayuu ciyaaryahankan caruurtiisa waqti ula qaataa. Waad ku maasan tahay daawashada warbixintan ka hadlaysay ciyaartoyda kubadda cagta ciyaara haddana qoysaskooda gaar ahaan caruurta ay dhaleen aan la wadaagin shaashadaha.